dadka toogashada loo geysanayo wal la leeyahay oo ay fiican yihiin markaas hadiiba ay tusayaan caalamka waxa ka socda wadanka Suudaan hadaba Ilhaan Cumar afka ay furatay saacadihii ugu dambeeyay arrinkaas ayana ka hadashay waxaan eegi doonaa sidoo kale madax kale oo iyaguna iyo mas'uuliyiin kale ayaa ka hadlay balse wadamada gobolku waxay ka dhaheen ayaan eegi doonaa arrinkaasi dhinaca kale dawladda Soomaaliya oo la sheegay in loo soo diri doono ciidamo cusub dawladda Uganda ayaa saacadihii ugu dambeeyay waxay ku dhawaaqday in ciidamo cusub ay u soo dirayso Soomaaliya ciidankan muxuu qabanayaa la isweydiinayaa maxay markaas soo kordhiyeen ciidamada Uganda ee markaasi dhowr iyo 20 sano ku sugan gudaha Soomaaliya ilaa iyo haddana markaas Uganda waxay soo wadaa ciidan cusub Soomaaliyana waxay dib ugu laabatay Carta oo labadii kun markaasi ka dhacay dalkaasi Djibouti waa muddo dhowr iyo 20 sano ka hor ah waxaan soo kale eegi doonaa wararka markaasi la xiriira caalamka oo ay ugu waawan yihiin Yuhuudda ayaa mar kale duqeyn waxay ka bilowday marinka Gaza iyadoo ilaa iyo hadda la tilmaamay inay ka socdaan guud ahaan halkaasi xasuuq aad u baan dhimashada ayaa la tilmaamay inay gaadhay 104 qof saacadihii la soo dhaafay oo kaliya qodobadaas iyo qodobo kale faahfaahsan barnaamij ku maqli doontaan saaxiibayaal soo dhawaada aan ku bilownay wararkan iga soo gaaraya dhanka Somaliland madaxweyne Cabdiraxmaan Cirro ayaa berri safar ugu ama baxaya dhanka galbeedka Somaliland gaar ahaan banka Wajaale halkaas oo markaas madaxweynuhu uu ka dhig doono mashruuc ballaaran oo laga fulin doono banka Wajaale